السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada qiimaha badan aad idin salaamay meel walba caalamka joogtaan isku soo noqdo wanaagsan mid kamid ah muuqaaladeena ugu dambeeyay aan uga hadlaynay waxyaabaha ugu badan ee waqtiyada naga lumiyo ayaa qaybta comments-ka waxa aad ugu batay codsiyo ka imaanayo inaan kaga hadalno qaababka waqtiga loo maareysto marka qaababka waqtiga loo maareysto buugaag badan laga qoray balse muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa habab aniga ee caawiyay oo aadna u isticmaalo waqtiga ugu dambeeyayna aan aad ugu soo socday ka soo bilow xilliga kuliyadda ilaa hadda waxaana kuugu soo koobi doonaa ilaa 7 qodob oo ah habab cilmiga ahaanna la isku waafaqsan yahay isla markaasna qaarkood aniga aad u isticmaalo ku soo dhawo barnaamijkeena maanta saaxiib haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay kanaalkan fadlan ku soo biir ee kanaalka subscribe saar isla markaasna muuqaalka like ku caawi waa kaliya inta aad ku caawin kartid kanaalkan intaas kadib runtii dunida maanta mashquul aad u fara badan ayaa ka jiro markii loo barbar dhigo zamankii hore qof walbo wuu mashquulsan yahay ama ha haayo shaqo dowladeed shaqo private ah waxbarashaha ku jiro qof walbo wuu mashquulsan yahay xitaa dadka aanan shaqada haynin ee guri jooga ah way mashquulsan yihiin marka waxaa muhiim ah si fudud in aan iskula fahanno adigoo qaabkay doonto ahaatee u mashquulsan sidee uga faa'iideysan kartaa waqtigaaga inta ugu badan ana uga dhigi kartaa waqti wax soo saar leh marka ugu horeyso qodobka koowaad wuxuu noqonayaa waqtigaaga 100% waa adiga inaad controlshaa aniga waxaan isticmaalaa qaacidada dhahayso 100% waqtigayga aniga ayaa iska leh aniga ayaanan controlo dabcan waa shaqeynaa waxbaan baranaa boos ayaan leenahay waqti shaqada la soo galo waqti laga baxay leedahay taas oo marka tusaale ahaan noqonayso waqtigaaga adiga 100% ma controlshid marka maxay keentay dadkii badanaa in ay dhahaan aniga shaqadaas iyo shaqadaas ma qaban karo maxaa yeelay waqti uma haayo gym-ka ma aadi karo maxaa yeelay waqti uma haayo taas marka cagsigeeda waxaa aaminsanahay haddii 100% adiga waqtigaaga aad leedahay 100% waqtigaaga adiga aad controlshid wax walba waqti waa u heli kartaa taas oo marka macnaheeda noqonayso waqtina waxbaa barataa ama waa shaqaysaa ama wax kala samaysaa laakiin waqtiyo kale fara badan aa kuu soo harin xitaa haddii aad tahay qof shaqeeyo maalinkii 8 iyo 10 saacadood ama 10 iyo 4 saacadood weli waxaa heli kartaa waqtiyo mucayan ah haddii ay tahay intaa shaqada ku guda jirtid inaad adiga maaraysid ama haddii ay tahay markii aad ka soo baxday inaad maaraysid mar walba marka waxaa rabaa qaacidada koowaad inay noo noqoto 100% waqtigaaga adiga iska leh taas horta aamin qodobka labaad oo runtii aad iyo aad u muhiim ah markii loo yimaado waqti ilaalinta iyo waqtiga sida ugu wanaagsan in looga faa'iideysto wuxuu noqonayaa haa iyo maya noloshan sideedaba waxaa jiro in aad haa dhahdid wixii aad ku qanacsan tahay isla markaasna rabtid inaad samaysid iyo inaad maya dhahdid wixii aadan raalli ku ahayn oo aad ka soo horjeedisid marka in badan bulshada ama dadkeena ama anaga dhanba waxaa waqti naga lagumiyo waxa la yiraahdo miiqmiiqda inaanan la ogeyn waxa u baahan tahay tusaale qof ixtiraam u haysid ama arkino hadalkiisa diidi karin ayaa shaqo kuu soo bandhigay ama baashaal iyo waqti lumin kuu soo bandhigay marka adigii oo shaqo ka muhiimsan howshaas ay ku taalo qofkaas ixtiraamka u haysid ama saaxiib ha ahaado ama waalid ha ahaado si aad u qancisid waayaha leedahay marka meeshaas marka waxaa ka baxayo waqti oo wax soo saar kuu noqon lahaa marka in aa horta taqaanid xilligee haa la yiraahdaa sidaas si la mid ah xilligee maya la yiraahdaa waxay qayb weyn ka tahay sida waqtiga aad u controlan kartid isla markaasna aad sida ugu wanaagsan uga faa'iideysan kartid qodobka saddexaad marka wuxuu noqonayaa in aad waqti u samaysid qodobkan marka waxaa waaye wax walba noloshan waa la gaari karaa wax walbana waa la xaqiijin karaa waxay u baahan tahay laakiin in rabitaan aad u haysid waxaas iyo in aad waqti u samaysid wixii aanan waqti loo samaynin ma la gaari karo marka sidee waqti loogu samaynayaa qaabka waqti loogu samayn karo qaacidada caanka waxaa waaye waxaa la yiraahdo to do list wax walbo inay ku leeyihiin checklist maalan dadka marka way kala tageen waxay ku kala tageen qofna to do listkiisa wuxuu ku egyahay saacado qofna wuxuu ku egyahay maalin qof wuxuu gaari karaa isbuuc dadka qaarna bilo ayay markino jadwal degsadaan oo schedule ay leeyihiin dadka qaarna sanado ayay waxay u baahan yihiin inay qabtaan sii dejiyaan dad caadi ah group iyo shirkado intaba meeshaan marka aan marayno marka waxaan kula wadaagayaa khibrad shakhsi ah oo aniga aan soo tijaabiyey wax badan iga caawisay dhanka to do list-ka markii aan dhiganayay kulliyadda caafimaadka oo aan ahaa ardayga xilligaas 6 sano
inta badan waxaan soo ahaa hogaamiye macnaha leader ayaan ahaa ama galaasaan maamulayay ama ardayda midowga ardayda caafimaadka dhan ayaan hogaamiye u ahaa. taas marka ardayna waa tahay kuliyad aad u adag oo wax akhris aad u fara badan u baahanna waa ku jirtaa, isla markaasna maamulkii iyo isku xirkii ardayda iyo maamulkii isku xirkii ardayda iyo markiino kuliyadihii kala duwanaa isku xirka ardayda jaamacadaas iyo jaamacadihii kale howlo fara badan oo markii aad fiirisid u eg qaab dowladeed oo naloo tababarayay sida aan markiino institutionada hay-adaha dowladda qaabka wax loo maamulo ayaan ku shaqaynaynay. xilligaas runtii waxaa aad iyo aad ii caawiyey waxa la yiraahdo to do list. maxaan qabanayaa, xilligee wax akhrisanayaa, xilligee kulamada sameynayaa, xilligee seminaarada iyo markiino manage garaynayna oo amoomolina. waxaa kale oo intii aan to do listkaas isticmaalayay ay i gaarsiisay sanadkii ugu dambeeyey waxaan noqday ama jaamacadda waxay i aqoonsatay ee i guddoonsiisay leaderkii ama hogaamiyihii ugu fiicnaa ay soo maro ibid intii ay jirtay hay-addaas ardayda ma arkinoo hogaamiso. taas marka waxaa i gaarsiisay keliya in aan aad u isticmaali jiray bugnood yaran lahaa oo mar walba gacanteeda ama boorsadeeda aanan ka bixin oo ay ku qoran yihiin wax walba oo rabno inaan sameyno. marka waxay i gaarsiisay marka jaamacadda in ay i aqoonsato qofkii yacni maamulihii ama hogaamiyihii ardayda ugu wanaagsanaa ee soo maro zamankaas anaga naga horreeyay oo dhan. marka markaan dib u fiiriyo dabcan khibradda maanta aan leemaanan lahayn, laakiin waxa aan xasuusan karo waxaa waaye awoodda ay leedahay in aad haysatid to do list oo aad ogtahay maxaa biri qabane, maxaa saa dambe qabane, yaa la kulme, see ula kulme, goormaa wax akhrine, jadwalkaagana uu ku kala maaraysan yahay. marka inta aanan ka bixin to do listka oo runtii ah mid ka mid a qeybaha ugu muhiimsan maareynta waqtiga, xilliga hadda la joogo oo haddana markii loo barbar dhigo xilliga ardayga aan ahayn aan ka mashquul badannahay. dabcan in badan nolosha waxay u eg tahay routine, in aan 4 maalin isbitaal xaadiro, 4taas maalin ka gadaal isbuuci 2 maalin inaan fiidiyoyo idin sameynayo youtube-ka hadday tahay podcast haddii ay tahay kanaalka caadiga ah, in oo familiga haddana time aad la qaadanaysid oo waqtigiisa ka fikiraysid, in aan sameynayo balamihii online consultationka oo aan dad qaabilayo. yacni waxyaabahaas oo dhan waqtiga ciriiri ayay kasii dhigayaan. waxaana laga tegi karin inaan weli wax sii baranayno oo wax la akhrinayo oo aad baxthi sameynaysid, cilmi baaris aad ku jirtid. taasna qayb weyn ayay ka tahay markiino to do listka, laakiin sidii xilliga hore u isticmaali jiray hadda ma u isticmaalo. maxaa yeelay wax walba waa routine. waxaan ogahay maalin heblay maxay ii yaalo, saacad heblay maxaan qabanayaa iyo wax lamid ah. marka halkaas markaan uga gudubno to do listka ama inaad waqti u samaysid arrinkan, qodobka ku xiga marka afraad wuxuu noo noqonayaa time blocking. wax la yiraahdo waa qaacido zamanadan ugu dambeeyay aad u caan baxday, waxaana aad ugu caan ah ninka maanta ugu hantida badan caalamka ee la yiraahdo Elon Musk. Elon Musk mar walbo oo la wareysanayo wuxuu aad uga sheekeeyaa waxa la yiraahdo time blocking. dabcan to do list samaysatay, waxaa tiri waxaas xilligaas aan qabanaya, waxaas xilligaas aan qabanaya. time blocking marka maxaa waaye? time blocking waxaa waaye in shaqadaas aad markiino dooratay oo aad jadwalaysatay in waqti ay ku go'an tahay ay jirto. waqtigaas wixii ka dambeeyo aysan shaqadan fulaynin oo laga gudbayo macnaha time blocking. marka meeshan waxaa soo galaya 2 qaacido, time blocking plus qaacido kale oo la yiraahdo Parkinson law. Parkinson law iyadana waxaa waaye, Parkinson law waxay ku leedahay maalan dadka laba waay markii ay wax qorsheynayaan. qofna wuxuu ku leeyahay in waxaas ayaan qaban doonaa, insha Allah isbuuca soo socdo ayaan qabanayaa. taas wax qaacido ay ku dhisan tahay ma jirto. laakiin Parkinson law waxaa wax walba inay deadline leeyihiin, waqti ay ku go'an yihiin oo kama dambays inuu jiro. markii aan isku xirno marka labadaas qaacido waxaa waaye time blocking iyo deadline. wax walbo markii aad jadwal u samaysatid oo aad to do listkaaga ku qortid, waa haddii aad rabtid in waqtigaaga sida ugu wanaagsan uga faa'iidaysatid, waa in shaqadaas ay jirtaa waqti kama dambaysta ah. waqtigaas kama dambaysta haddii ay fuli weyso ama la qaban waayene, waa in ay jirtaa isla xisaabtan sababtii loo qaban waayey. tusaale haddii aad arday tahay wax akhrisaa ku yaalo, wax akhriskaas tirada badan haddii ay tahay maalan 5 chapter ama 4 chapter, maskaxdaada u sheeg in waxa ku yaalo ay 5 chapter yihiin, laakiin 5 chapter way culus tahay marka maskaxda loo sheego. maskaxda bini'aadankana ma jeclo wax walba oo culus inay saarsato. waxaa fiican marka inay kala jijibisid oo aad u kala jijibisid markaas 5taas chapter walba marka wuxuu leeyahay cutub hoosaadyo. cutub hoosaadadaas cutub walba wuxuu ka kooban yahay maalan 3 page, 4 page, 2 page. maskaxda markii qaabkaas wax loogu sheego oo la kala jijibiyo inay aqbasho waxaasna ay markiino qaadato
way ka sahlan tahay markii aanan loo jijibinin saa daraadeeda waqti qabso shaqadana ii taalo waxa akhrinta tusaalan ku wadnaaye shaqadana waxa akhrinta ii taalo waxaan akhrin doonaa waxaas biri galab laga bilaabo 2 duhurnimo ilaa 5 galabnimo tusaale marka sidaas idhaahdid kala saar marka 2 duhurnimo ilaa 5 galabnimo waa ina qaacido meelaha soo gelisaa waxaas ku akhrin lahayd dabcan fiidiyoyo badan ay jiraan oo qaabka wax akhrinta uga hadalnay qofkii u baahan inuu wax akhrinta wax ka ogaado wuxuu ku laaban karaa playlist-ka la yiraahdo hababka wax loo akhriyo insha Allah waxaan idin soo dhigayaa qaybta description-ka ee videogan marka waxa muhiim ah wax walbo ina waqti u dajisid waqtigaasna meel uu ku go'an yahay inuu jiro saacad heblaayo ka bilaabanaya saacad heblaayo ku dhamaanaya time block way waqtigaas ayaa gelisay qaanad way Parkinson loan wuxuu ku leedahay kama dambaysta xadka jaritaanka waqtiga waa xagee deadline-kii way haddii asaas u xisaabtantid wax weyn ayaa qaban kartaa haddii aad tahay qof qoraa ah haddii aad tahay akhriye haddii aad tahay qof shaqo ay ku taalo xafiis mashaariic riboori haddii laga sugaayo everything ay ahaato saas ina u kala gelisid haddii gym aad rabtid inaad tagto ama caado gaar ah aad rabtid inaad noloshaada ku soo kordhisid waqti u sameey time block u sameey kadibna deadline u yeel oo isla fahanna rajeynaya intaas marka laga soo gudbo marka qodobka shanaad ee muhiimka ah isla markaasna ka dhigi karo qof wax soo saar leh waqtigiisana sida ugu wanaagsan kaga faa'iideysto waxa waaye in noloshaada ay ka mid tahay haddii aad heli kartid maalin walbo waqti la yiraahdo waqtiga ilaashan ama protected time waqtiga oo me time waqti aad adiga leedahay ama subax ha ahaado ama galab ha ahaado waqtigaas waa waqti adiga iyo noloshaada isla qaadanaysaan oo aad ugu talagelaysid maskaxdaada in aad ogaatid wax soo saarkeeda tusaale mashaariica ku taalo mashaariicdaas kala agaasinkoodii waxyaabo noloshaada ku soo kordhay oo cusub sida aad ugu fikiri lahayd oo xalal aad ugu keeni lahayd project cusub aad ka fikiraysaa qaabkii aad ku bilaabi lahayd iyo plankiisa waxa barasha ku taalo wax barashadaas ama semester cusub ha ahaado ama jaamacad cusub aad bilowday ha ahaato master aad bilowday bachelor aad uxuda sida plan aad ugu dejin lahayd maalin walba marka haddii aad waqti muayyan ah ama subax ha ahaado galab ha ahaado nus saac ha ahaado saacatayn ha ahaado mushkilad ma lahan oo aadan waxba qabanaynin social media galaynin kaliya adiga iyo mustaqbalkaaga aad kaga fikiraysid adiga iyo hoolaha ku yaalo qaabkii aad u kala maareyn lahayd kulamadaada aad u maareyn lahayd shirarkaaga aad u maareyn lahayd aad uga fikiraysid runtii waxay kaa dhigaysaa in waqtigaaga aad u manage garaysid waxyaabaha lagu gaaray ka mid tahay isla markaasna qof productive ah oo wax soo saar badan ku noqon lahayd qodobka ku xiga marka wuxuu noqonayaa oo ah markaas qodobkii lixaad qodobkan waxaa la yiraahdaa wakaalasho yani ama delegation howlaha ku yaalo oo aanan aadka muhiimka u ahayn in aad adiga present ahaatid oo dhex joogtid oo qabatid oo gacmaha la gashid inaad dad u wakiilatid meeshan muhiimadda ay leedahay waxa waaye waxaa raadinaysaa siyaabo walbo oo aad waqti free ah ku heli kartid tusaale ahaan hadda waxaa jiro number oo whatsapp ah oo aan ugu talagalay consultationada iyo dadka inaad talooyin ku siiyo hadday tahay caafimaadka waxbarashada nolosha wax la mid ah whatsappkaas kooxa ii hayso oo markino asxaab ah yani halkii aniga waqti badan aan gelin lahaa dada markino ii hayaan oo ii sameynayaan dhanka kale youtube-kan xilli waxaa jirtay oo waqti badan iga geli jiray laakiin maanta asxaaba ii hayaan oo markino videoyada ii sameynayaan waxaasoo dhan waqtiga delegationka ahmiyadda uu leeyahay ka mid tahay dhanka kale tiktok aa jiro oo aan mar dhow sameynay oo waayihii dambe hadda iyo kow sifir ka soo bilowda ama zero oo shaqaynayo laakiin si degdeg ah ku socdo marka tiktokaasna kooxa noo hayso oo idana markino shaqadiisa wado waxyaabahaasoo dhan xilli waxaa jirtay oo ani keligii aan samayn jiray laakiin aanan fursad u haynin waxyaabo fara badan oo maanta aan ka fikiraya inaan markino soo kordhiyo aanan ka fikiri karin maxaa yeelay faraha iyo lugaha halkaasaan kula jiray marka delegationa sameeyey waxaan arkay kooxa iga caawin karaan si markino weliba aan aad ugu qanacsanahay anigana aan dareemay fudayd isla markaasna aan uga fikirayo sida horumar aan ku sameyn lahaa dhanka kalena aan wax cusub usoo kordhin lahaa haddii ay tahay bulshadeyda iyo haddii ay tahay markino familiyadeeda intaba marka muhiimadda ay leedahay delegation weligaa ha yaraysanin fiiri shaqooyin ku yaalo muuqaal hore waxaan uga soo hadalnay haddii aad tahay xitaa qof keligiis nool nadaafadda guriga iyo wax karinta haddii aad kari kartid delegate
qof kaa caawiyo oo aad lacag yar ku bixisid iyo wax la mid ah si walbo oo aad waqti free ah usoo saaran kartid aad u raadin kartid hoolaha adiga kugu gadaaman aysan qasabka ahayn inaad mar walba faraha kula jirtid dad kaa caawiya haddii aad heli kartid isku day free time kuu soo baxaya qodobka toddobaad aan ka dhigi doonno qodobka ugu dambeeya marka wuxuu noqonayaa dunida maanta waxaa aad iyo aad ugu soo kordhay xanuun caan ah oo la yiraahdo chronic dissatisfying syndrome xanuunkaas wax kale ma ahan waa dareen uu qofka dareemayo in qanaaco la'aantaas uu keenayso runtii waqtigaaga kama faa'iidaysatid runtii waqti badan ha kaa lumo runtii wax soo saar badan ma lihid runtii lacag ma sameynaysid يعني niyad jab iyo walaac oo gudaha qofka ka haysto asagoo markaas u maleynayo inuusan waxba qabanoonin waa marka yani pandemic oo caalamka oo dhan adiga i daawanayo inay kusoo martaa laga yaaba aniga in badan ay soo martay mararka qaar waxaa dhacayso yani videosan diyaarinaya 2 ama 3 ama hal wuxuu doona ha ahaado ama plan shaqo aan rabo inaan wax badan hal mar isku qabto sidii aan ugu talagalay inaan u qabto mi ugu fulayso tusaale haddii aan ka dhigo 3 video ayaan ugu talagalay maanta inaan sameeyo oo aan bulshada uga faa'iideeyo kaliya marka ugu dambeyso waxa ii soo baxayso hal video bas aan duubaya dabcan hadafkii aan hiigsanayay maanan gaarin laakiin haddana niyadda waxaa muhiim ah inaan u sheego at least wax baan sameeyey noloshan dadka dhan waxaa niyaddooda ka buuxa oo mar walbana ka dhex guuxayo dreams iyo goals waxay leeyihiin riyooyin iyo hadafyo waaweyn qaarkood u baahan sanawaad ama sanado badan in la gaaro qaarkood u baahan maalmo far qaarkood u baahan dhaqaale iyo lacag fara badan adiga marka waxaa muhiim ah si tartiib ah inaad u koraysid maalin alla keeno talaab inaad qaadaysid wax uun inaad samaynaysid adiga waqtigaaga ma ka faa'iidaysanaysaa mise ma ka faa'iidaysanaysid yani ha ku fiirinin mindaarka ama ma arkino microscopiga ama weynaysada oo aadka u weyn ha ku fiirinin ka fiiri angal yar aniga shalay meeshaan joogay maanta uga yaraan ma ka kacooya sidii aan ahaa sanadkii hore maanta maxaa iiga kordhay marka noloshana kama maaranto mar walba inaad isla xisaabtantid dabcan sababta aan waqtiga uga hadlayna maxaa waaye waqtigeenna waa nolosheenna waqtigeenna waa koritaankeenna iyo kobceenna haddii waqtigeenna aan uga faa'iidaysano sida ugu wanaagsan oo allah subxaana watacaala na raalli ka yahay adduunkaanna wax fiican aan ka qabsanaynaa aakhirana insha allahu tacaala janno ayaan rajaynaynaa marka saa daraaddeeda adiga fiiri dhanka cibaadaadka iyo diinta ma koraysaa ma fiicnaanaysaa dhanka waxbarashadii haddii luqad aad ku dhiban tahay luqadaadii at least improvement ma samaynaysaa yani waxaan ka wadaa improvement ma samaynaysaa wax walbo si tartiib ah semesterka shalay haddii aad maadooyin badan ku dhacday semesterkan saa ka tahay maadooyinka lagugu lahaa ma iska gudday haddii arday aad tahay haddii deymo lagugu lahaa deymihii ma kaa baxeen dhinac walba adiga u qaado marka noloshan waxaa la rabaa marka koriinsho slow ah ayaa wuxuu ka qiimo badan yahay koriinsho oo hal mar waali ah lacag si waalan kuu soo gasho aqoon qish kugu soo gasho yani waxaasoo dhan faylar iyo ma arkino shalay u dambeeyo marka saaxiibayaal noloshan waxa naloo keenay inaan mar walba xasuusano waayo wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun marka hadafka aa u noolnahoo dhan roor kuf kac jab baro ha baranin qararac quc kulli waxaa waaye ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo keenay inaan caabudno caabududaasna waxaa waaye aqoon inaan ku caabudid akhlaaq inaan ku caabudid faham iyo garasho inaan ku caabudid waqtigana sida ugu wanaagsan aa uga faa'iidaysatid waxaan rajaynayaa muuqaalkan inuu sameynayo ma arkino macno isla markaasna faa'iido soo kordhinaya insha allah haddii marka halahan aana la soo gaartay aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa mar labaadna ha iloobin kanaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inaad saaratid oo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada isbuuclaha ah oo aan isbuuciiba 2 mar soo gelino haddii aa horey noola joogtay ama saaxiib aa cusub aad tahayne like-ta waa keliya waxa aad ku caawin kartid kanaalkan intaas ka gadaale waxay inoo tahay muuqaalka xigo insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu